cutubyo ka tirsan ciidamada kumaandooska ee Gorgor kuwa qaybta 12aad ciidanka booliiska federaalka iyo ciidamada NISA oo saakay ka ruqaansaday magaalada Dhuuso-Mareeb una jihaystay dhanka koonfureed ee caasimadda ayaa farasaaray maleeshiyaad ka tirsan argagixisada oo xilligaasi ku howlanaa inay milooyin galiyaan wadada laamiga ah ee isku xirta Dhuuso-Mareeb iyo Gurceel waxaana ciidamadu halka ay ku dileen 19 xubnood oo argagixisada ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka qaybta 12aad ayaa soo bandhigay meedadka maleeshiyaad ka tirsan argagixisada Al-Shabaab kuwaas oo lagu dilay dagaal ka dhacay inta u dhaxaysa Tuulo Xayo iyo Ceel Dheere oo dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Dhuuso-Mareeb ee xarunta Galmudug dagaalkan oo qiyaastii socday muddo 2 saacadood ah ayaa lagu baacsaday kooxdii ku howlaneed dhagaraynta dadka shacabka ah ee adeegsada wadada laamiga ah iyagoo la kulmay khasaarihii ugu xoogganaa ee toddobaadyadii lagu gaarsiiyo deegaanada ku xeeran magaalada Dhuuso-Mareeb saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo madaxda maamulka Dhuuso-Mareeb oo warbaahinta qaranka kula hadlay halka uu dagaalkan ka dhacay ayaa tilmaamay in ciidamada qalabka sida iyo saraakiishooduba ay ku howlan yihiin soo afjaridda firxadka maleeshiyaadkan ayna soo hooyeen guulo la taaban karo meeshaas waxaan kaga dilnay ilaa 19 dhagarqabayaashii Al-Shabaab ilaa dhaawacoodana meelo badan baa laga sheegayaa haddeerna waa ku sii raajoognaa meeshaasna waxaan u soo booqday jiida hore dagaalka gudoomiyaha caasimadda Dhuuso-Mareeb xildhibaanada maamulka Galmudug saraakiisha noocyada kala duwan alxamdulillah rabbil ilaahi baa mahadaas leh annaguna waan waday doonaa khawaarijtaas layntooda dibgan wuxuu yiri qofkii dilay iyo qofkii dilaanba waa ahlu janno waxaan ku dhiirigelinaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay khawaarijtaas la iska dhiciyo waa wax wuxuusha waa wax dalkii diinta midna aan roonayn dadkaas saakay waxay rabeen inay dad shacab meesha ku laayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed baana saaka soo gaaray waa la jabiyay khawaarijtii 19 ayaa laga dhigay meesha uga tageen waad aragtaan meesha yaalaan ciidankan Ilaahay baa guuleeyay hal nin baa ka shahiiday ciidanka iyo hal qof oo shacab ah markii hore ahaayeen iyagu ay dileen intaas anaga soo gaartay Ilaahay baa ku mahadleh intii dhaawacantana waxaan u rajaynayaa Ilaahay inuu u boogadhayo intii dhimatana shahiid waaye rasuulka sheegay oo ku sheegay duuba 2 qatalo oo qatalo Ilaahay baa ku mahadlay saaka waa la jabiyay khawaarijtii raadkoodii firxadkooda waxa la gaarsiiyay sandaqaal la gaarsiiyay gudoomiyaha magaalada Dhuuso-Mareeb Macallin Cabdiraxmaan Geedo Qorow oo la hadlay ciidamada howlgalkan fuliyay ayaa u sheegay ummadda Soomaaliyeed in la joogo xilligii ay u midoobi lahayd dhameystirka haraadiga argagixisada waxa adinkana ku ammaanantiin inuu Ilaahay guushaas gacmihiina oo ku sababay waxaan rabaa inaan ku hambaleeyo guushaas waxa la idinka rabaa dagaalkii ma dhamaan khawaarijtiina waa jabtay Al-Shabaab maalinkii ugu liiteen maanta joogan maalinkii ugu liiteen adduunka maalinka soo maray ay maanta joogan lacag aruusi isugu soo hareen wax kale galaan lama arko iyo inay qof masaakiin intay soo meena ku soo xiran ay dad ku qarxiyaan waa idin hambalyeena guuleysta cadawgana jabiya adinkana intii naga dhaawacantana Ilaahay ha caafiyo intii naga shahiidana jannada Allah gaarsiiyo aad iyo aad u mahadsantihiin garabkiina nahay anagu idinka harimayno meel alla meesha joogtaan micigiina nahay haddaan nahay shacabka caasimadda degan halkan waxa taagan waa u jeedo xildhibaanadii waaye waxa soo socda culimadii odayaashii dhalinyaradii ganacsatadii baarlamaankii dadkii geesiyaalka ah oo reer Galmudugna garabkiina yihiin micigiina nahay dawladda Soomaaliyeed oo dhan dhagkiinay tahay wixii maaragtay dhaawac gaarana haddan diyaaradda saarayna hal qof oo xumaanaya ama maaragtay wax ka halaabayaan ma jirto hadii aad baan ku mahadcelinahay Cabdullaahi Warsumarooble warbaahinta qaranka Dhuuso-Mareeb